الرحيم السلام عليكم magacayga waa Dr. Yaasiin Barkad waxaa ahay dhakhtar ku takhasusay lafaha haddana ka howlgala isbitaal Al Ihsan Specialist Hospital maantana waxaan insha Allah ka hadli doonaa xoogaa ka sheegayna risk factorska yani waxyaabaha nugleeya sida loo qaybiyo iyo sida loo kabo lafta qofka markuu ka jabo boodada waa macluumaad aad u fara badan oo aan muddo ururinaynay dhaato aad u badan weeye 4 sano socotay weeyaan waxa ay tahay tii nooceeda ugu horeysay oo wadankeena laga sameeyay introduction-ka marka hore lafta femur-ka markuu qof ka jabo waa lafta boodada waxa weeye mid kamid ah waxyaabaha ugu badan oo keena dhibaatada ku keena bukaanka dhibaato badan ay ku keentaa adduunka oo dhan marka laakiin wadankeena ma jirin wax studies ma jirin oo laga sameeyay oo ka hadlaya femur fracture marka study-gan aan sameynay research-kan muhiimadiisa waxa ahayd inaan ogaano sida ay common u tahay sida ay u badan tahay qofka inuu ka jabo lafta boodada wadankeena waxyaabaha ku keena sida loo qaybiyo jabkaas sida uu qofka u jabo iyo maxaa loo sameeyaa wadankeena marka la joogo iyadoo aan barbar dhigayno adduunyada kale markaas study-ga wuxuu socday from 2018 ilaa 2022 waxaana laga qaaday dhammaan bukaanada la admit gareey isbitaalka ee loo sameeyay qaliinka ee laga kabay lafta ee boodada waxa la ururnay macluumaadkan ururnay wuxuu ahaa bukaanka demographics-kiisa oo ah age-ka gender-ka iyo maxaa qofku ku jabiyay maxaa jabiyay ma xabad bay ahayd ma shil baabuur buu ahaa waxyaabaha uu qofkan ku keenay inuu jabo iyo maxaa loo sameeyay qofka maxaa see loo kabay maxaa noo soo baxay hadaba markii waxyaabaha aan baarnay waxaa noo soo baxay 402 bukaan oo boodada ka jaban oo dadkeena ah ayaa waxaa nooga soo baxday in boqolkiiba 64 inta ugu badan dadkaasi ay ahaayeen rag ay ahaayeen maid marka inuu qofku boodada ka jabo guud ahaan waxay u badan tahay rag ay ku badan tahay boodada marka saddex qaybood loo qeybay qaybta kore qaybta dhexe iyo qaybta hoose age-ka ugu badan ee qof average age-ka mean age-ka dadku ay jabayeen wuxuu ahaa 47 years anatomical location-ka meesha ugu badnayd ee dadka ka jabeen waxay ahayd femur proximal qaybta kore ee sinta iyo ay iska galaan boodadu waxa kale oo ogaanay scientifically in type 3A type 31A oo ah femur neck ay ahayd the most common subtype waxa kale waxa ugu badnaa qofka waxa ugu badan ee jabiya ee boodada ka jabin kara waxay ahayd inuu qofku dhaco dadka waaweyn ee u nugul inay jabaan inuu qofku dhaco oo uu isaga oo aan shil iyo waxba gelin taas ahayd nooca ugu badan ee jabinaysay dadka waaweyn dabcan dadka dhalinyarada ahna waxa ku badan inay jabiso waa baabuurta oo car accident-ka iyo xabadda waxa ogaanay in dadkeena waliba wadanka Soomaaliya in nooca ugu badan dhalinyarada ee jabka uu ku dhaca uu ahaa shaftiga isla markaana ay ugu badnayd inuu keenaan xabaduhu distal femur-ka inuu qof ka jabo aad ay u yartahay wadankeena waxa kale oo ogaanay in male-ka hadii uu qofku male yahay wuxuu nugul yahay inuu lafta boodada ay ka jabiso xabada inay ka jabiso halka female hadii qofku ay tahay ay u badan tahay oo waliba all age yahay dumarka waaweyn oo ay ka jabaan boodada qaybta kore dadka dhalinyarta ah oo dhan waxa iyagu u badnaayeen gunshot-ka sida halka ka arkaysaan graafkan uu noo sheegayo dhinaca hadda ka soo eegto dhinaca bidix ka soo bilowdo oo numberka halka hoose gunshot-ku waa blue-ga gunshot-ku blue weeyaan halkan gray-guna uu ka ahaa foolka labada ugu badan ee marka dadka jabinayo waxay ahaayeen wadankeena xabad iyo inuu qof weyn yahay oo qofkii uu ka dhaco uu u dhaco uu dhulka ku dhaco marka la agdhigo adduunyada kale waxa noo soo baxday dadka kale ee femur-ka ka jaba iyo inagu inay wax badan isaga mid ahayn qaybaha tusaale ahaan dadka waaweyn oo kale waxyaabaha jabiya iyo dadkeena waaweyn waxyaabaha jabiya oo foolka ah osteoporosis-ka ah aging-ka ah inaynu adduunka isaga mid ahayn difference-ka noo dhaxeeya annaga iyo research-yada kale adduunku waxa uu ahaa gunshot-ka ama fracture-rada uu keeno xabadda adduunyada oo aad ugu sii yar oo halka iyaga waxa ugu jiray car accident inay car accident-ku jiray laakiin waxa aad uga badan inuu qofka dhalinyarada ah uu ku jabo xabad inay jabiso way kaga duwaneen halkaas
research kan implication kiisa ama muhiimadda uu leeyahay ee aan soo jeedinna waxay ahayd in la sameeyo madaxa waddankeena management strategy loogu gaar ah iyo preventive measures u gaar ah in laga hortago jabka qof dadkeena bowda ka jabaan hadda waan fiicanahay xogaas ganshudku uu yaraaday laakiin ilaa hadda falliska preventive measureski dadka waaweyn fallka ku jabaa ma jiraan marka in la sameeyo istaraatiijiyo iyo awareness aad u badan ayay soo jeedisay cilmi baaristeedan waxa kaloo aan soo jeedin resourceska iyo expertise-ka markuu qofka bowdo ka jabo waddanka oo dhan in aan lagu maareyn karin waddanka gabigiisa lagu maareyn karo dhakhaatiirta badankoodana expertise uma laha orthopedic meel walba ma joogo resources oo kana waa limited lagula tacaali karo femur fractures conclusion-ka wuxuu ahaa in maaragtay in inta aan hadda sheegay oo in la sameeyo in la sameeyno research in dib research aad u far badan sameeyno research-kuna aan hagaajino waxa kaloo aan ku soo gabagabeynaya in history-gan uu yahay single center marka waa weakness-kiisa research badan baa loo baahan yahay iyo waxa kaloo loo baahan yahay national trauma and specialist management for femur fractures. Assalamu alaikum.